kulanti wanaagsan waxaad soo dhawaataan wararka ugu dambeeyay arrimaha siyaasadda aan kaga helno kuwooda ugu door karoon howlgallada ka socda gobolka Hiiraan oo sii xoogaystay iyo dowladda Soomaaliya oo ciidamo hor la geynaysa halkaasi ciidamada dowladda oo weerar ku qaaday maxkamadda Al-Shabaab ay ku lahaayeen dowladda Muqdisho xogihii ugu dambeeyay ayaan idin soo gudbin doonaa filla Soomaaliya oo ka degtay muddo kordhinta ay samaysanayaan dowlad goboleedyada dalka qodobo adagna dul dhigtay maxkamadda sare ee dalka Kenya oo go'aan kama dambaysa ka soo saartay mudankii ka dhashay doorashooyinkii uu ku soo baxay William Ruto waa galabnimo Isniin ah 5 bisha September sanadda 2022 wararka laga helay gobolka Hiiraan ee bartamaha dalka ayaa sheegay in wali ciidanka dowladda ay howlgallo ka wadaan gobolkaasi oo ay kula dagaalamayaan xoogga Al-Shabaab oo toddobaadkan weeraro culus ka geystay halkaasi ciidanka xoogga dalka qaybta 27 ayaa maanta ka dhaqaaqay dhanka degmada Buuraburde waxayna isku fidiyeen deegaano dhacaduleedka degmadaasi iyaga oo ka bilaabay dhaqdhaqaaqyo culus oo ka dhan ah kooxda hubeysan ee Al-Shabaab wararka ayaa sidoo kale sheegay in ciidamadu ay hawada ka saareen isgaarsiintii deegaanadaasi maadaama uu socdo howlgallo culus iyo abaabul ka dhan ah xarakada dhanka kale saraakiil ka tirsan militariga Soomaaliya oo la hadlay warbaahinta ayaa shaaciyay inay gaareen deegaano kale ah Ceemoy Bagaxyaale Keed Gubadley iyo ceelka Dabyoole sidoo kale ciidamada ayaa burburiyay doomo ku xirnaa webiga Shabeelle kuwaas oo ay sheegeen inay isticmaali jireen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab oo baxsad ah sidoo kale ujeedka howlgalladan ayaa ah sidii Al-Shabaab looga xoreyn lahaa halkaasi loogana hortagi lahaa weerarada ay ka fuliyaan gobolka Hiiraan dhinaca kale maleeshiyaadka macawisleyda ayaa iyaguna dagaalo ka dhan ah Al-Shabaab ka wada dhanka degmada Jallaqsi halkaas oo ay ka dhaceen iska hor imaadyo xooggan xaaladda ayaa wali ah mid aad u cakran mana jiro wax war ah oo ka soo baxay dhinaca kooxda Al-Shabaab oo ku aadan howlgalladaasi si kastaba ha ahaatee arrimahan ayaa ku soo aadaya iyadoo maalin ka hor ay Al-Shabaab dad shacab ah ku laayeen duleedka Beledweyne kadib ay gubeen gawaaridii ay dadkaasi la socdeen ciidanka booliska gaarka ah ee Haramcad iyo kuwa Nisa ee Duufaan oo howlgallo ka sameeyay deegaanka Basra ciidamada booliska gaarka ah ee Haramcad iyo kuwa Duufaan ee ka tirsan Nisa ayaa saaka weerar gaadmo ah ku qaaday maxkamad ee Al-Shabaab ku lahaayeen deegaankaas ee lagu magacaabo Basra sidoo kale inta u dhaxaysa Cali Mahdi israsaasan xoogan ayaa halkaasi ku dhaxmartay laba dhinac waxayna wararka halkaasi ka imaanaya sheegayaan in ciidamada dowladdu gabi ahaanba ay burburiyeen fariisimo ay Al-Shabaab ku lahaayeen deegaankaasi sidoo kale waxaa la burburiyay maxkamadii ugu weyneed oo Al-Shabaab ku lahaayeen deegaankaasi tan ayaa bilow u ah howlgallada qorsheysan oo ay dowladda federaalka Soomaaliya doonayso inay ku soo afjarto la dagaalanka kooxda Al-Shabaab qasaaro aad u xoogan oo ka dhashay laba dhinac dagaalka meeshaas ku wada galay ayaa la sheegayaa inuu aad u tiro badan yahay qasaarada laba dhinac ah ayaa jira mana la oga inta uu la eg yahay wuxuu ku soo kordha wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe ayaad ku dhageysan